السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي وان السلامي السلام الله عليكم maanta waxaan wada casriye fudud oo bijiyo aan soo hagaajiyay marka ma sha Allah oo qumbishidnigiisu dhan yahay basbaaskiisa cagaarka waa kana hadda stepka aan ka bilaabay waa kana ma sha Allah bijiyihii waa kana waan soo dhaqday maxaa lahaa xalayaan biyaha la dhigay ma sha Allah waa kana meeshan waxa igu jirto basal aan soo jarjartay kabsar caleen tuun intaas ay igu jirto ma sha Allah halkaas cusbadii ay igu jirto waa cusbadii halkaas idinkaan tusay rabaa waxa waaye qashinkii oo aan ka soo saaray digirtii waaye marka hadda meelaan gooni iska dhigay si aad u aragtaan digirta waan soo cadeeyay qashinkan waan ka soo soocay qashinka waa waxaan tusay hadda makiinadii aan inta soo dhigtay waxaan rabaa galaaskii aan ku xiraa inaan shiidaan rabaa marka waxaan ku daraa kista aan shiidayo basal yar iyo tuun yar iyo waxaan ku kabsar caleen aan ku shubaa marka weelkan aan ku shuba lahayn waan soo diyaarsaday kan yara biya yara iga dafay marka waxaan suubinaa inta kale ii hartay aan adeeg zaaidka ku shiidaa asaga naftirkiisa wax ka qaada hadaan rabo laakiin hadaan rabo biyuna kuma taabsiinay si ay hadhoot igu adkaato marka hadda waa kaasa intaana ii hartay laba joor camlood waxaan shiidaa ii hartay marka waa kaasa marka aan shiido ka bacdi insha Allah wax yar ka bacdiyaan adiga wax yar aan dhigaa ka bacdiyaan duba hadoo alla idmo marka waa kana waan shiitay oo wax yar cabaaro yeelay marka waan isku dardaraa dhinac inuu carafta ka jirta laga yaabaa dhinac cusbada ay ka jirto marka hadda waan isku soo laba qastay dhinaca maxaa la ku karka xaqiisana saliidiyaan soo saarana farxalkina waan soo diyaarsanaa farxalkii aan soo diyaarsaday saliid waan saartay waa kana dabkina waa shitay marka intay ku kulaanayso yaraan u sugaa marka hadda waa kulaatay marka dubidaan galaa marka bajiwa kana marka saan waa wax dib ah ma jirto marka hadii aad burburka dhigto waxa waaye dhaxda uu kor uu ka bislaana dhaxdan ciirin oo ka naqana marka in qafiif laga dhigaa wanaagsan qafiif zaid aan naga dhigin laakiin la balaariyo oo fartaada aad dhac ku siiso marka waa kana hadda wili dubidaan wada waan wareejinaa wareegan aan koowaad inaan si fiican nituso waaye oo aanan isheeg aanan waxna aanan ka waxayna hal wareeg si fiican inaan nituso hadda wareegga koowaad waaye waxaan si fiican inaan nituso rabo sidaan u soo goosanayo sidaan u fidinayo iyo sidaan ugu ridaayo marka aan goosto wax dhib leh ma lahan bijiyahana waxa uu ku fiican yahay marka aad isheeg aad ku shubto inaanan walaanjinin oo adiga aan maxaa lahaa aanan qaandada aanan marin saasay ku fiican tahay waayo asagoo isla marka aad ku shubto waadan qaandada amarsiiso waxa waa ka jajabaa waa isla arki doonaa aniga markoo yara soo guduto waayo waxaan aan qaandada aan marmarin doono ama cabaar oo saliid ku jiro marka hadda waa kana wareegga koowaad hadda aan ka baxnay marka wax yar aan u sugaa hadda waa kana wax yar wuu gudutay markuu yara guduto qaandada la gelin karaa ka hor waxa waaye bijiyaha isku waajajaba hadda waa kana ma sha Allah saan quruxda badan oo gududkan ku soo saaray ma sha Allah quruxda marka bijiyo hadaad aad aragtaan maba niidino waa arki doontaan insha Allah marka hadda waxaan wadaa wareegga labaadaan wadaa isla sidii aan maxaa la kii kood ku soo mar leh suubina gabal yaraan goosana gacantaan ku fidinaa markay yara soo guduutan qaandada marsiina waa kana hadda waa diyaar
haddana waan ka bixinaa. waa kaasa marka waa horta igu soo orod ma ahan, waxa waa waqti siinay u baahan tahay inaad inta habeenkii aad biyo la dhigto, oo marka habeenkii biyo la dhigto insha Allah subaxina maxaa la wasaqda ka bixiso, biyo kala nadiif loo dhigto. haddana markaad galabkii aad rabto kale aad maxaa la wasaqdii oo yareed ku hartay inaad ku shubto ka miirto oo qashirka ka bixiso. waan la soo wadaagay sidaan qashinka ugu bixiyay. haddana waa kana wareegay saddexaad aan wadaa. waa easy qofkii oo gacan fidiskiisa iyo sida loo dubaay garanayo wax dhib ma lahan. marka hadda waa kana intaas yara ii hartay, waa wareeg afraad ay naqanaysaa, dhib ma laha. hadda waa kana oo gudutay qaandada markaan oo kala geli karaa. marka hadda ka bixis waaye wax yaraan gadgadinaa. marka hadda waan ka bixinaa. marmar wax yar iska ka dhagdhaga, wax kale ma ahan, waa ku shubidii la isku dhadhaweey waaye. haddana waaba kana waaba ka bixiyay, waan ka bixinayaa. waxaan u suubsaday maasha Allah qumba shidni iyo basbaas cagaar iyo raqay. marka waa alaabaha walaca waay maasha Allah. hawada ka cunay insha Allah ya asxaabta walaca, hawada idinka ka qaata, waa iga kaftane. marka waa kaasa maasha Allah waan dubtay. hadda meesha maxaa la wareegii afraadaan aan ku shubay bis waaye. hadda waa farxalkii iyo wixii aan iska qaaday iyo weelkii aan ka dubay. marka saana hadda ku soo dhameeyay maasha Allah. maasha Allah waa diyaar. sidaan u kala fujinay ma aragtay, lama walaan in maxaa lahaa qaandada la geliyo ma ahan ilaa oo yar ka soo guduuto ama ka casaado sidaad u taqaaniin. marka hadda waa markuu ku haboon yahay waana qaandada waa marsiye. haddana waa ka bixis. waxa noo haraaba yarba. waan dhameynay. marka dabkaas iska dami doona insha Allah. marka hadda waa kana waxaan iska damiyay kuwa korkiyaan iska daminaa. saliidana waan iska qaadaa. marka axbaabi waa kana maasha Allah bijihii aan dubisaan oo ku soo baxay oo quruxda badan basbaaskiisana waa loo soo wadaa. qumba shidnigiisa waa kana wixii dhan waa is dhinac dhigay. waa basbaas, qumba shidni iyo waxa waaye raqay waay maasha Allah. marka axbaabi inta nala joogto waa nala joogtay. inta nagu cusubna please gambaleelka meesha ka soo muuqda doona ku dhufo, subscribe na dheh si aad u aragto cashar kastoo cusub aan soo geliyo oo aan isla socodkeena maasha Allah ama isla jaanqaadkeena oo meeshaas oo si fiican noogu socdo. marka axbaabi waa kana aad iyo aad maxaa lahaa lagu farayareystay. qumba shidni loo soo hagaajiyay, basbaas cagaar loo soo hagaajiyay iyo raqaygii lagu dhanaansanay. marka axbaabi waa kaasa. marka samsam intaan nila wadaagtay qeyraan nii dhaafay. وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.